shabakada wararka ee Lukaya News ayaa booqatay xarunta dugsiga sare ee casriga ah ee Ayatiin ayaa waxa uu la kulmay ardayda dugsigaasi dhigata oo imtixaankii midtermka ku guda jira waxaana maamulka dugsiga iyo ardaydaba ka wareysatay habka tacliintu u socoto iyo imtixaankani waxa uu yahay ما وحنا سلام يا معلمين تايدا أردايدا يو تقول تلفزيون دوسي يوم إحنا شيء سواء أدبي وسرساء وكده وانت سكولة بكرة دوسي سب كنسا وحنا وبرا دوسي سري سكولة برا هذه أدبي كان وكده وين دوسي هذا كان يصير تايم بدل ما قارنا كان يصير ساعة كان هذه الشيء فتكاد مع مين فعنا نوري كان دوسي قد بيتا آيتين إنه سيدنا دوارك درين كذا امتحان كنا دودي الجلوسة. يقول في عيا ونفرتون الامتحان في مسنا. إذا دوكسي قاعد بيجتو ما يسك ماله. آيتين international secondary school ودوسي في عين دوسي الزمالة. هو في عين هذا قلت له في عين. واحد شو بيسأل في عين مع مين سيسنا معمولها دوكسي قصرة آيتين أحمد محمد عاتية ayaa ka waramay waxyaabaha dugsiga ka socda iyo qorshe ay damacsan yihiin horta warna waxa weeyaan waa sida aad u sheegteen asalka markii horena Ayatiin ujeedooyinka loo aasaasay waxa ka mid ahay inuu waxbarasho toosa iyo waxbarasho dadba oo dhigi karo marka tii tooskii alxamdulillah waan bilownay September baan bilownay imigana weydin ka maanta ku jooga muxuu ahaa in imtixaankii midterm examination la bilaabay waxaan markaa u gudubnay qodobkii kale oo aan muddo ka shaqeynay oo ah xagga luqadaha iyo IT-da iyo tutorial classes aanu ku caawinayna ardayda secondary-da dhigata subject matter-kii ay iskuulada kale ku dhiganayeen oo additional ugu dhigi doona marka waxaanu hadda bilaabaynaa hadii Ilaahay yiraahdo bishan gudaheega qaybtii luqadaha oo aanu ugu soo horeysiin doono labada luqadood ee Englishka iyo Ahmaariga ugu horeysiin doono oo aanu leenahay labada luqadood ugu muhiimsan Englishku wuxuu ku jiraa waxbarashadeena oo dhan ku jiraa ardaydeena waxa jira language barriers baa haysta oo si fiican muxuu markay soo gaadhaan secondary-ga ulama qabsadaan iyadoo aanay ahayn ducfi ama muxuu ahaa weakness kaga jira xagga aqoontooda maadiga ah wax dhibaato ku keena taluuqada dhibaato ku keenta oo ardaydeena waxay ka fikiraan hadda macallimiinta oo dhan way wada ogyihiin vocabulary bay ka fikiraan ereygan macnihiisu waa maxay ereyga kale macnihiisu waa maxay marka taas aan is leenahay ardayda imiga ku jirta eedasha iyo dugsiyada dhexe iyo form muxuu secondary-da ku jirta aad ka kaabtiin oo furtun classes evening and afternoon classes aanu ku bari doono luqadahaasi waxa kale oo ku darana luqada kale Ahmaariga oo isleeyahay waa population aad u badan mujtamac barabana weeyaan aynu jaarnahay xiriir badan naga dhaxeeyo ay aad muhiim noogu tahay inaynu luqadina barno marka labadaas aan hadda bilaabi doonaa waxa isaguna isla markaa ku xigi doona qaybta IT-da oo hadda macallimiin ay diyaar yihiin agabkoodii la diyaariyay dugsiga sare ee Ayatiin ee casriga ah waxa dhigtaa arday gaadhaysa 200 oo arday oo isugu jira fasalada koowaad iyo labaad ee dugsiga sare waxaana la aasaasay oo hawlgalkiisa uu bilaabay dugsigaasi 2010 waa Caafi Lukaya News Boorama.